halkani waa EBC News dawladda ku soo dhawaada warka maanta taariikhdu waa 4 bisha Juun 2025 qodobada wararka Soomaalidana waxa kamida Somaliland waxa la gudboon inay xoog ku soo furtaan maxaabiistooda lagu haysto magaalada Laascaanood hadalkaasi waxa yiri xildhibaan Gurichi oo ka tirsan golaha baarlamaanka Somaliland dawladda Ingiriiska oo safiir cusub u magacaaday سفارة ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho waa tahay dawad iyo qodobadaas ayaanu ku faahfaahin doonaa warkeena daawasho wanaagsan waa tahay dawadayaal xildhibaan Gurichi oo ka tirsan golaha baarlamaanka Somaliland ayaa maanta war saxaafadeed siiyay saxaafadda isla markaana waxa uu ka hadlay sida ugu haboon ee maxaabiista Somaliland lagu soo furan karo iyo waxyaabo kale haddaba aan kala baxo xildhibaan Gurichi iyo waraysigiisii uu bixiyay maanta 4 bishii 2025 waxaan doonayaa inaan ka hadlo barnaamijkeena caanka ahaa ee 3 qodob iyo badh oo in muddo aynu u yaranaysanay hase yeeshee aynu maanta doonayno haddii alla ka dhigo inaynu waxoogay ka nidhaano haddaan qodobada sida u kala horreysiiyo qodobka koobaad ee aan ka hadlayo waa safarkii madaxweynaha uu shalay kaga soo laabtay waddanka Kenya iyo magaalada Nairobi marka ugu horeysa waan halkan horta hambaliyay iyo bogaadin uga dirayaa safarka madaxweynaha oo ah safar guuleystay Somaliland guulo fara badan iyo sumcad iyo karaamo soo hoyay isaga iyo madaxda kale la socotay baa waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baa u qabateen halka laga soo wado taas waa qodobka safarka madaxweynaha qodobka labaad aan ka hadlayaa waxa weeye in xaaladda waddanka guud ahaan horta guud ahaan waddanku waa barwaaqo roobabkii ugu weydeen inkastoo waddanka aanay wada gaadhin sidii la filayayna aanay u deyn meelo badan roobku aan weli helin meelaha qaarna uu ku yar yahay haddana waddanku waa iska rooban yahay nabadgelyadu waa alxamdulillahi rabbil caalamiin waddanku waa degan yahay hase yeeshee waxa waddanka ka jira xaalad dhaqaale yaraana oo busaarada xilligan oo waliba lagu jiro xilli aynu maalin dhow ciidayna haddii alla idmo shaqo la'aan baahsanina waa jirtaa taasoo dib u soo celisay arrimihii tahriibka bal markaa xukuumadda waxaan iyana aan ku wargelinayaa aan ku boorinayaa in arrimaha maciishada iyo shaqo abuurka iyo xaaladda dadka aad baa dadku ugu jilicsan yahay bal halkaana ay xoogga saaraanoo dadka arrinkiisa hoos loo eego waayo dee xildhibaanadu dadkii aad ku dhex jiraanoo wallaahi duruufaha waddanka ka jira iyo busaaraddu aad bay u badan tahay qodobka saddexaad aan ka hadlayaa waxaa weeye qodobkan maxaabiista ciidanka qaranka ka tirsan ee ku xidhan magaalada Laascaanood arrintaa oo in badan soo noqnoqotay ayaan doonayaa maanta inaan talo ka soo jeediyo maadaama arrimaha security-gana aan wax ka aqaano waxa weeyaan maxaabiista ku xidhan magaalada Laascaanood ee ciidankeena ka tirsanay culays weyn bay nagu hayaan dal ahaan iyo dad ahaan iyo dawlad ahaanba maalin kasta oo raggaasi xidhan yahay waa mid inaguna mooraal ahaan iyo damiir ahaan aynu xidhannahay maxaabiistaasi habeen iyo maalinba weyn la soo hadlayaanoo waxayna leeyihiin maxaa nooga raagteen maxaa nooga maqan tihiin maxaa noogu iman weydeen hadalka aan leeyahay wayna la soo hadlayaan mid telefoonada maahe quluubteena iyo laabteena la soo hadlayaan hase ahaatee waxa iyaguna inala hadlaya oo iyana aynu dareemayna hadalkooda aynu maqlaynaa intaa ka badan oo dhimatay oo qadiyada ay u xidhan yihiin imika u dhintay iyo in ka sii badan oo ka sii horreysay walaalayaal waxaynu ognahay maxaabiistu ma aha dad gashi loo haystay iyo dayn mana aha dhalinyaro tahriib ah oo tahriib u xidhan waa geesiyaal difaaca qarankooda iyo jiritaanka ummadooda iyo calankooda u xidhan iyaga kol haddii maanta ay xidhan yihiin wax xili ma saara innagaa xilina saaran yahay maxayna saaran laba xil bayna saaran inaynu soo dayno oo maxaabiista jeelka ka soo daynaa waa waajibna saaran waa waajib qaynuuniya waa waajib diiniya
وواجب دولة النماء وواجب ضد النماء هو تنبير كانوا نفرين وعقلوين الصارم قضيته أي حليهين أي حبس وجود شيران إن إلى النو وأنا ينقلوا من وايو تيجي مركو هرا واحد صحيحين أو دياروها إن قضيته إنه بنتان إننا تحسين وتهجنه لبدا يسكو هين تودي إنه نفرقين الصوت إنه قضيته يقرن ما دينا إلى النو لبدا واجب بيننا غير صارم إنك على يسكو السارية يجوا واجب كودي ويكتي سيدا مركو يتهاي هل كبير تهجنه الدنيا ده واحد هرا كلا ويصومره إن واتيقرن كينه شن يلا باتن كيوغس لبا كوريا صدق يلا باتن وحوغي سنبير حشين ugu dhacday سنبير حشadaas waxay keentay in nitaaqeeni soo gaadho nitaaqadii wali kama inaa soo kaban waxa weeyaan maanta ragga inaga xidhan rag la eeg oo inuu ku soo furana ma hayno waa marka xaqiiqada laga hadlayo dhul jabhadda khaatimo sheeganaysaa ay ku gorgortamayso ay leedahay dhul bana aanu doonaynaa in looga durkana kama hayno sidaa darteed maanta Soomaaliland boosiishankay taagan tahay waa mid adag oo aanay haynin kaadhadhay jabhadda kula gorgortanto wada hadallada imika sidii cataashabeen dhaweedu sheegay waxaanu doonaynaa buu yidhi in ama beelo loo wada hadlo ama laba maamul loo wada hadlo labaduba way nagu dhimasho jabhadda yar ee magaalada Laascaanood laba maamul uma wada hadli karo waayo Laascaanood waa degmada Soomaaliland kamid ah wali waxa ka taliya maayarkeeni inoo joogay maayarkii degmada Laascaanood ee doorashadeeni 2021 ku soo baxay baa Laascaanood ka taliya Laascaanood waa degmada maamul inaga madax banaan ma laba Soomaaliland iyo jabhadda khaatimo laba maamul uma wada hadli karaan sidoo kale dee 4 iyo 3 sanadood baynu dawladda hayna beelo kuma noqon karo sidaa markay tahay ugu adag maanta kaadharkii aynu nimanka ku soo dayn lahayn maxaa markaa ayna la gudboon tanoo kale adduunyada way ka dhacday 1973 markii ciidamada Masar baaxada ku dhufteen Israa'iil ay ra'iisul wasaaradda Israa'iil la hadashay Mareykanka ninkii arrimaha dibadda u qaabilsanaa oo loo jiray Henry Kissinger waxay tiri waxaanu doonaynaa in Masarna la dhax galo xabad joojin la helo Henry Kissinger wuxuu ku yidhi haweenaydii ahayd ra'iisul wasaare Goldomir loo jiray Israa'iil maanta Masar ma joogto marxalad ay ku soo fadhiisato miiska wada hadallada waa in ciidamada Israa'iil ay waajibkooda gutaan oo ay soo gaarsiiyaan Israa'iil marxalad ay miiska ku iman karaan taas oo macnaheedu yahay doorta wax iska celiya maanta ragga waxa lagu soo furan karaa laba qodob waa marka xaqiiqada lagu soo dhawaado in ragga rag la mid ah oo ka badan loo soo qabto oo ragga rag lagu soo furto ragga waa lagu soo day karaya waxa kale oo ragga maanta lagu soo day karaya in jabhadda cidhiidhi la saaro oo lagu dhawaado oo lagu ruqaansado oo la cabsi geliyo si beesha caalamka iyo adduunyadu inoo kala qabato kadibna aynu ragayna isu weydaarsano waxaynu hayniyo waxaynu ku soo darsaniyo waxay laga hayaan halka waxa tusaale waa habeen hore waddanka Ruushka dharbaaxa weyn baa ku dhacday oo diyaaradii oo dhan baa laga dumiyay adduunyadu waxay soo jeedisay xabad joojin iyo in maxaabiista la isu weydaarsado Ruushku uu diiday xabad joojinta laakiin wuxuu yidhi maxaabiista la isu weydaarsano taa maxaa keenay Ruushkana maxaabiis badan baa laga hayay Ukraine maxaabiis badan baa laga hayay in maxaabiista la isu weydaarsadaana cid walba waa wadan xukuumadda maanta waxa leeyahay labada waajib waa idin saaran yihiin ragga xidhan inaa soo daysaana waa idin saaran yihiin inaa qaranimada iyo qadiyadda ilaalisaana waa idin saaran tahay marxalad aynu hadal ku geli karnana ma joogno boosiishan adag baynu joognaa weliba madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne adiga dhacdadan ragga lagu qabtay way ka horeysay xukuumaddii hore aad joogtay markii raggan la qabtay waxaad joogtaa marxaladii uu joogay ninkii la odhan jiray Anwar Saadaad guuldarradii 76 isagu madaxweyne ma ahayn laakiin wuxuu madaxweyne ahaa heshiiskii laga galay Israa'iil ninkii wasiirka gaashaandhigga ahaan jiray ee Masar dagaalka ku hogaaminayay markii dambe loo odhan jiray Saadar Shaadale wuxuu yidhi dharbaaxadii nagu dhacday 76 ee militariga Masar lagu burburiyay waanu ka soo kabanay mid qalab iyo naf iyo maal bay ahayd hase yeeshee waxa nagaga dhib badatay heshiiskii Anwar Saadaad Israa'iil la galay
ee uu ku saxeexay inaan masar dagaal dambe qaadin, inaan xuduudaha masar iyo israa'iil ciidan dambe la geyn karin, inaan dhul dambe aanay masar sheeganin intaa loo celiyey mooyaane waxaan ku odhan lahaa madaxweyne maadaama adigu dhacdada aanad si gaara ugu tanayn guuldarrada ah labadaa qodobna ku hor yaallaan ee inaad raggiina soo dayso qarannimadiina ilaaliso maanta waxaan ku odhan lahaa ciidan beeladadiina waad qaramaysa milatarigaagana dhiso dadkaaguna waa ku ogol yahay boosiisha ragannimada markaynu isa soo taagno ee jabhadda aynu cidhiidhi gelinno raggeenna si ragannimo ah aan u soo furanno laakiin inagoo maanta marxalad adag taagan waynu hadalku waxaan aaminsanahay maxaabiistaa lagu soo furanaya meel adag buu inagaga jiraa waayo kaadhanaynu miiska la tagno ma hayno maxaabiistiina waxaa loo haystaa in qarannimadeenna lagu dhafoortaabto si kaacad haddii hadalka loo sheego waxayna leeyihiin dee qarannimadiinni maxaabiista ku bedesha ama beela dhoqda ama naaqoonsada midna yeeli mayno raggan xidhani dee qarannimo u xidhan iyo tahriib uma xidhna qadiyadda in ka badani ay u dhimatay ee in ka sii badani ka sii horraysay maanta inaynu adkaynin mooyaane ka leexleexasha ma jirto markaa waxaan leeyahay hadalka waan ku dheeraaday inaynu ragga soo furannaa waa inagu waajib inaynu qarannimada ilaalinaana waa inagu waajib laakiin arrintaasi maxay ku jirtaa hadalkii uu yidhi abwaan dallaayad bay ku jirtaa ee ahaa galool mudhay hangool lagu gilgilay sooma goyn kara ee gabsa wuxuu yidhaahdaa markaad gudun la fuushaayo kol hadday gamuurnaato oo la isgarmarin waayo waa gacanta midugun waxay gabi wayda raggaa maanta gacanta midugun baa lagu soo furan karaa maxaa hadhay barhkii baa hadhay hortaan barhka ku daro ayaamahanba dee saxaafadda waxaa ka maqlayay doorashaa la qabanayaa iyo golaha wakiilada doorashadii diidan iyo madaxweynehoo shalay ba yidhi doorashada maalin lagu dari maayo anigu arrimaha ka hadli maayo mudubal madaxweyneha waxaa le madaxweyne in doorashada xilligeedii lagu qabtaana waa waajib inaan doorasho la kordhinina waa waajib anigu samid baa ii dheeroo jeeskii halkana candho dhexe weli waa biyalaayahay isbeddelkuna weli si wanaagsan ugama hillaacin dadkii candho dhexena waxay leeyihiin talow madaxweyne iyo xildhibaankii soo abtiga ahaa inteebay soo jiraan markaa waxaan leeyahay madaxweyne dawaadgeeni muddadina way soo koobantay dee bii waayo meesha iga adkayo weli hadal unbaan meeshii geeyahay wax maan geyni dee halkaa iga hagaajiyo intaa muddada yari dhammaanin wax geeye dawaadgan muddadii yidhi waxba lagu dari maaye halkaa iga geejiyo dee bal iigu soo dhaqso wax isugu ka hagaaji yaan dadkii mar dambe hadal kula noqona waa mahadsantihiin su-aalahana way weydiin doontaa dee waxa weeyaan wixii aan halkan ka sheegi jiray ee biyo lahaaye waxbarasho lahaaye caafimaad lahaaye waddooyin lahaaye dee horumarkii ballaadha safiir cusub ayaa dowladda ingiriiska u soo magacaawday magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya safiirkaasi cusub ayaa magaciisa la yidhaahdaa Charles King waxa uu bedeli doonaa safiirkii hore u joogay isla markaana waxa uu la kulmay shalay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud halkaas oo madaxweynuhu ka gudoomay waraaqda aqoonsiga safaaradda ee safiirnimo ee dalka Ingiriiska waxaanu si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynuhu madaxtooyada xafiiskiisa halkaas oo ay kulan kooban ay yeesheen